kula wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha gorahan oo kale ayaynu ka ambaqaadnaa halkan waxaynu kusoo qaadanaa waxyaabaha isboortiga ka cusub ee maalinkaasi taagan maanta barnaamijka intiisa ugu badan waxaynu kusoo qaadan doonaa kulanka Soomaaliya oo la ciyaarayo Cumaan wax walba aad kaga baahan tahay saadaasha hordhaca ee laga bixinayo wiilasha xulka iyaga waxaynu ka filan karnaa guul mise guul daro ayaynu barnaamijkeenu kaga eegi doonaa farsamada iyo kaamiradu waa Fuad Maxamed Cabdulqaadir Xuseen ayaan ahay haddii aynu ku bilaabnana kulan ka tirsan wareega guruubyada isreereebkiisa Arab Kaba iyo xulka iyaga Soomaaliya maanta wuxuu wajahayaa xulka qaranka kubadda cagta ee Cumaan kulankan xiise gaar uu leeyahay si guud Soomaalidu isha ay ugu wada hayn doontaa oo wiilasheena waxa kulankan ay ka keenaan ayay aad indhaha looga wada hayaa xulka iyaga Soomaaliya diyaar garow xoogan oo xilli ciyaareedkan uu sameeyay ama sanadkan uu sameeyay Djibouti diyaar garowgiisii ugu badnaa halkaas uu ku qaatay sidoo kale wiilasha xulka metelaya intooda ugu badan waxay ka yimaadeen qaaradaha kala duwan ee Yurub America ilaa iyo sidoo kale Yurub ay ka yimaadeen marka sanadkan wax badan laga filan karaa xulka qaranka kubadda cagta ee Soomaaliya dhankooda Cumaan marka loo eego oo kalena way kaga fursad badan tahay leeyahay marka kooxaha ama xulalka kale ee Afrika ee la ciyaarayaan xulka Soomaaliya marka kulankan saadaasha ugu badan ama rajada ugu fiican xulkeen waa u qabaa oo waayo rajo fiican aan kaleena in guul ay nooga soo xareeyo hadda waxa xusid mudan kulankan in uu ka qabsoomayo dalka Qatar oo noqon raba ama martigeliyaasha koobka adduunka ee soo aadan marka fursad kale ama wax kale oo farxad leh inoo tahay inaynu ku ciyaarno garoomadii lagu ciyaari lahaa koobka adduunka ee Qatar xilli ciyaareedkan ama ay martigelin doonto koobka adduunka ee soo aadan marka inta Djibouti xulka diyaar garowga uu ku sameeyay laba kulan oo saaxiibtinimo la ciyaareen Djibouti kulan 3 gool ay ku xasuuqeen kulankii ugu dambeeyana Djibouti hal gool oo dirqiya laga badiyay Soomaaliya marka rajada ugu fiican waxa yaabaha keenaya taas qayb ka laba kulan oo saaxiibtinimo ka hor kulankan caawa ee soo ciyaartay Soomaaliya Djibouti ee labada ciyaartay hal kulan 3 gool ay kaga badisay hal kulan gool dirqiya laga badiyay marka Soomaaliya aad rajadeedu ay u fiican tahay taariikh ahaan xulkan Cumaan iyo sidoo kale Soomaaliya hadii aynu eegnana wiligood tartan caalami ah sidoo kale kulan saaxiibtinimo Soomaaliya iyo Cumaan isagama soo hor imaaneen marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulankii ugu horeeyay ee xulalka Soomaaliya iyo Cumaan ay isaga hor imaadaan marka waxyaabaha kale oo isha kulankaas lagu hayo qayb uu ka yahay marka waxyaabaha kale waxa qayb ka ah xulka Soomaaliya guud ahaan xulalka Arab ama xulalka dalalka Carabta oo kale marka loo eego oo kale inta taariikhda la xasuusto afar kulan uu wajahay hal guul oo weyn oo ka gaaray xulalkaasi 5 gool iyo 2 ayuuna ku xasuuqay xulka la yiraahdo Mauritania marka afar kulan inta taariikhda la xasuusto xulalka Cumaan xulalka Carabta intaynu wajahno oo kale afartaas kulan taariikhda laga xasuustaa hal guul weyn ah inooga xareysana taariikhda inoogu jirto marka wax kale warjada kulankan nasiinaya qayb ay ka tahay marka kulankaasi oo 5 gool iyo 2 aynu ku xasuuqnay xulka Mauritania taariikhdu waxay ahayd 1985 waqtigaasi ayaa inoogu dambeysay in xulalkan ama dalalka Carabta guul aynu ka xareysano marka sidoo kale xulka Cumaan oo kale markii la yiraahdo taariikhda inta laga xasuusto kulamada ama sidoo kale qaaradda Afrika xasuusta laga hayo ama taariikhda laga hayo xulka Cumaan waxay tahay waxa leeyahay xulka Cumaan qaaradda Afrika xulalka ama sidoo kale dalalka wuxuu la ciyaaray ama uu wajahay laba kulan uu wajahay labadiisa kulanna guul iska daay xitaa barbardhac xitaa kama xareysanin wax kale oo fursad ina siinaya qayb ay ka tahay marka si kastaba Cumaan waynu ka awood badanaanay waynu kaga fiicanaanay labada kulan Cumaan uu la ciyaaray xulalka ka dhisan qaaradda Afrika guul daro kala laabanaya marka in xulkii ugu horeeyay inuu noqono way adag tahay taas inaynu ka aqbalno xulka Cumaan marka guushu si walba aniga ayay noo muuqataa xulka Soomaaliyana kaliya 5 kulan ee ugu dambeysay waxa uu badiyay hal kulan uu badiyay marka laba kulan waa laga badiyay laba kulanna barbardhac oo kale yacni kulamadii ugu dambeeyay xulka Soomaaliya uu ciyaaray kulan saaxiibtinimo iyo kulan caalami ah markii la isku soo dardaro laba kulanna laga adkaaday laba kulan bareejo galay kulan uu badiyay marka Cumaan taariikh waynu ka sidanaa يعني تاريخ ahaan xulka Soomaaliya siday ku socdaan macalinka leelinaya waqtigan kulankii ugu dambeeyay ama kulmadii ugu dambeeyay siday ku ciyaaraysay xidiga isbiirad leh dhan kastana kubadda kaga ciyaari karo ma jirto fursad oo noqon karta marmarsiyo cimilada ay nagu adkeed Soomaaliya oo kale yani xidigaha xulka inta ugu badan matalaya sanadkan
waa xidigo ka yimid banaanka oo kale yacni America ilaa Europe dhammaan xidigo waa la isaga wada yeeray marka laga soo tago xidiga Farkutiris oo horyaalka Soomaaliya ka ciyaarayay Anwar iyo sidoo kale gulayaha xulka ninka lagu magacaabo Mustafa oo kale marka laga soo tago marka xulka si kastaba ciyaartan caawa 8 fidnimo dhanka iyaga ayaa la daawan doonaa marka xulka iyaga guul u rajeena sidoo kale adigu saadaasha iyo sidoo kale natiijada ciyaartu ay ka soo dhamaan karto maxaad xulka u rajeynaysaa qaybta hoose ee commentiga ayaa inuu reebi kartaa anaga inta maanta barnaamijka oo si gaar ah inuu u eegi deena xulka iyaga natiijooyinka ka soo baxana barnaamijyadan xiga hayeen ku soo gudbin doonaa